waxaan kula wadaagi doonaa warbixin iyo muuqaalo dhibaato kugu ah haddii aad muslim tahay ama aad joogi lahayd booska haatan ay joogaan muslimiintan muuqaalka iyo warbixintan oo dhameystiran ayaad kaga bogan doontaa barnaamijkeena intii uu socdo haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato page-ka YouTube-ka Amira Suleymaan fadlan follow dhe inagu soo biir oo ina soo raac muuqaalka like saar oo share garee gaarsii saaxiibadaada aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabsi xoogan ayaa soo wajahday muslimiinta ku nool khaasatan Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa ay la cabsanayaan aaminaada ay aaminsan yihiin diinta Islaamka iyagoo u baqay inay masaajidada ku dukadaan waxa gabi ahaanba la joojiyay cibaadadii iyo salaadii lagu ooga jiray masjidka weyn ee Abubakar Sadiq ee ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kadib markii loo baqay hanjabaadan ay ugu yimaadeen dad badan oo aan ahayn muslimiintan ay cabsadeen ayaa waxa ay gabi ahaanba joojiyeen salaadihii ay ku dukan jireen sidoo kalena cibaadadii ka socotay masjidkaas ee Abubakar Sadiq ee gobolka Minnesota masaajidka Abubakar Sadiq ayaa ahaa masaajidka ugu weyn ee ku yaala gobolkaasi ka oo ay dhistay Soomaali sidoo kalena ay ku dukan jireen muslimiinta ku nool gobolka Minnesota arrintan ayaa walwal badan ku abuurtay Soomaalida ku nool gobolka Minnesota iyo guud ahaanba gobolka Mareykanka muslimiintan oo ay kamid tahay Soomaalida ayaa waxa cabsi xoogan ay ka muujiyeen in Soomaalida iyo muslimiintaba loo target gareysa diintooda ay aaminsan yihiin iyagoo hanjabaad ay ugu imaanayaan qolo aan muslimiin ahayn kuwa uu hanjabaya inay dili doonaan sidoo kalena masjidada ay ku beegsan doonaan muslimiinta ku nool dalkaasi Mareykanka cabsi xoogan ayaa soo wajahday muslimiintaasi iyo guud ahaan Soomaalida ku nool gobolka Minnesota taasina waxa ay daliil u tahay marka aad joogtid dal aadan lahayn sidoo kalena dadka hogaamiye aysan lahayn diinta aad adiga aaminsan tahay waxa kaaga imaan kara caqabado xoogan iyo in lagugu target gareyso sidoo kale lagugu dhibaateeyo diinta adiga aad aaminsan tahay waa tan haysata hadda Soomaalida Minnesota iyagoo sidoo kale loo bartilmaameedsadan loona diiday inay masaajidada salaad ku oogaan masaajidkii uu weynaa Abubakar Sadiq ee ku yaala magaalada gobolka Minnesota ee magaalada Minneapolis ayaa gabi ahaanba la xiray taa oo caqabad ku noqonaysa muslimiinta ku nool gobolkaasi iyo magaalada Minneapolis masaajidkan ayaa ahaa astaanta ugu weyn ee ay leeyihiin muslimiinta ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis hase ahaatee masjidkan ayaa gabi ahaanba la xiray iyadoo loo cabsaday maamulka masjidkaasina ay sheegeen in gabi ahaanba ay joojiyeen cibaadadii ka socotay halkaasi iyagoo u baqay muslimiinta dhiigooga inuu ka muhiimsan yahay sidoo kalena salaadaha ay ku dukadaan masjidada kale iyo guryahooga intii ay dhib tani ka weyn ay soo gaari lahayd sidoo kalena ay door bideen xalna ay u arkeen inay xiraan masjidkii weynaa ee Abubakar Sadiq ee ku yaalay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis si kastaba haatee markii dib loo doortay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa bilowday in dad badan ay ku kacaan isir nacayb sidoo kalena muslim nacayb iyo Soomaali nacayb dad badan oo Mareykan ama cadaan iyagoo nacab Afrikaanta iyo khaasatan muslimiinta ku nool gobolkaasi ama guud ahaan Mareykanka isagoo Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka uu sheegay in gabi ahaanba la celin doono dadka Afrikaanta ee ka soo tahriibay Afrika sidoo kalena imaanay dalka Mareykanka iyagoo ka soo booday ama xadka dirbiga Mexico ka soo galay kuwa oo gabi ahaanba lagu celin doono goobtii ay markii hore ka imaaneen tan oo cabsi weyn ku abuurtay dad badan oo tahriibayaal ah oo Mareykanka dirbiga ka booday sidoo kalena ka galay xadka Mexico ay la wadaagaan hase ahaatee haatan waxa ku soo xigtay in gabi ahaanba la xiro goobaha cibaadada oo ay kamid tahay masjidka weyn ee Abubakar Sadiq ee ku yaala magaalada Minneapolis taa oo cabsi weyn ku abuurtay sidoo kalena Soomaali badan ay dhibaato badan kala kulmi doonaan iyagoo cabsi badan ka qabay in goobaha cibaadada hadii la bartilmaameedsado ay dhib badan u keeni karto dadka muslimiinta ee ku nool dalka Mareykanka hadii aad inta nala soo gaartay waxa tahay saaxiib wanaagsan fadlan follow dhe hadii aad page-ka daawanaysid sidoo kalena YouTube-ka Amira Suleymaan subscribe dhe oo nagu cimaamad like-ta share dhe muuqaalka oo gaarsii saaxiibadaada muslimiinta ee adiga oo kala i daawanaya aad iyo aad ayaad u mahadsantahay